gobolka Galgaduud magaalada Dhuusamareeb inuu yahay murashaxiisa soo taagaya jagada madaxtinimo ee Soomaaliya doorashada soo socota shir jaraa'id oo ay si wada jir ugu qabteen magaalada Dhuusamareeb isaga iyo madax kale oo ka tirsan ururka Al-Sunna wal Jamaaca ayaa waxa ka waramaya warbixinta nooga soo diray wariye Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Axmed iyadoo ay sii kordhiyaan musharaxiinta isku soo taagaya xilka madaxtinimada dalka Soomaaliya ayaa haddana musharaxii ugu horeeyay ka socda maamulka Al-Sunna wal Jamaaca waxa uu isku soo taagay xilka madaxtinimada dalka Soomaaliya Maxamed Suleymaan Warsame oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Dhuusamareeb isla markaana ay kala soo qayb galeen mas'uuliyiin ka tirsan maamulka culumadiinka Al-Sunna wal Jamaaca oo kamid ah gudoomiyaha guddiga fulinta Sheekh Maxamed Yuusuf Xeef oo waliba ku xigeenkiisa Axmed Cabdullaahi Maxamuud Ilkaase ayaa waxa uu sheegay inuu doonayo in lagu taageero sidii ugu guuleysan lahaa xilka madaxtinimada Soomaaliya isagoona ballan qaaday haddii uu ku guuleysto jagadan uu tartamayo inuu waxyaabo badan oo ay ka mid tahay la dagaalanka musuqmaasuqa iyo waliba gaarsiinta gargaarka dhammaan dadka u baahan uu qaban doono waxaan marka hore aad ugu mahadcelinayaa mas'uuliyiinta Ahlusunna wal Jamaaca taageerada ma garanaysaa aan kala harka lahayn ee maanta ma garanaysaa ay halka igu fidiyeen ayaan aad ugu mahadcelinayaa Ahlusunna wal Jamaaca weligeedba waxay u taagnayd danta dalka iyo dadka Soomaaliyeed ay u taagnaayeen cadawga diintana way ka difaacayeen aniguna Maxamed Suleymaan ahaan waxa weeye Ahlusunna ka mid ahaa maantana inaan noqdo musharax u taagan Ahlusunna wal Jamaaca waa Ilaahay mahadi waxaan ummadda Soomaaliyeed u sheegayaa in uu u dhashay wanaag iyo nabad in ay u soo socoto oo ay ku heli karayaan haddii ay dootaan nin Ahlusunna wal Jamaaca dalka talada dalka iyo dadka haddii ay u dhiibaan marka waxaan idin ballan qaadaynaa in haddii aad taageerada ay Ahlusunna siiyeen ummadda Soomaaliyeedna waxaan ka codsanaynaa iyadana magaranaysa in ay taageeradooda ay siiyaan ayaan ka codsanayaa waxaan idin ballan qaadayaa inaan dalka iyo dadka Soomaaliyeed aan ku soo celin doono nabadii iyo xasiloonidii uu u baahnaa inaan ku soo celin doono ayaan ballan qaadayaa haddii Ilaahay yiraahdo Soomaalina meel walba ay joogto waxaan kaloo ballan qaadayaa waxa ugu horeeya aan qaban doono in aan la dagaalami doono waxyaabaha corruption-ka ah in aan la dagaalami doono Soomaaliya sidoo kale Sheekh Maxamed Yuusuf Xeef oo gudoomiyaha guddiga fulinta maamulka culumadiinka Al-Sunna wal Jamaaca oo goobta ka hadlay ayaa isagana waxa uu sheegay in ay taageersan yihiin isagoona ugu baaqay beesha caalamka iyo waliba dhammaan mudanayaasha baarlamaanka in ay doortaan Maxamed Suleymaan Warsame oo xilligan keeni kara sida uu sheegay isbedel dhaba intii waxay diin waa fiican in nin Ahlusunna wal Jamaaca kana mid dadka warbaha ku nool gaar ahaan wadanka Mareykanka inuu ku soo booqdo xafiiskii degmada Dhuusamareeb uu la soo arko ciidamada iyo jiidaha waxa ka jira dhibaatada ah isagoo waliba doonaya taageerada mujaahidiinta iyo dadweynaha ku nool deegaanka waxaan bixinaynaa taageero iyo hoobar insha Allah caalamkana waxaan ka codsanaynaa ama dadweynaha Soomaaliyeed inay garabsiyaan musharaxan ayaan ahayn kii ugu horeeyay isku soo taagay xilka madaxtinimada ee dalka Soomaaliya iyadoona ay sii kordhayaan balse waa musharaxii ugu horeeyay ka socda maamulka culumadiinka Al-Sunna wal Jamaaca iskuna soo taaga xilka madaxtinimada ee dalka Soomaaliya